daawadayaal habeen galab subax wanaagsan meel kasta dunida guudkeeda ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkan dareenka shacabka iyo siyaasiga oo la waga barateen inay kusoo gudbina TV-ga caalamiga ah oo TV studios ku yaala magaalada London ee dalka Ingiriiska. barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga waxaan kusoo qaadanaa qodob aan isla leenahay in la falqeeyo ayuu mudan yahay aad baan u xiiso badan yahay. barnaamijka caawa waxaan ku la fakuri doonaa sida ogtii bateeriya 6 June markii dawladda federaalka Soomaaliya ay qaadatay go'aanka dhexdhexaadnimada arrimaha khilaafka ka taagan dalalka Carabka kadib waxa soo ifbaxay saluugaad fara badan oo ka yimid dhanka dawladda goboleedyada federaalka Soomaaliya qaarkood. heer waxay gaareen markii ugu dambeysay ay iyaguna soo saaraan go'aano ka gedisan go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya oo ay cadeeyeen inay la safan yihiin dalalka uu horboodayo dalka Sacuudiga iyo waliba Qatar. طبعا arrimahaasi maxaa dhaliyay maxaa sababi kara sidaas xal loogu heli karaa caawa barnaamijkeena ayaan ku falaqeyn doonaa. dhanka kale waxaan ka fiiri doonaa dawladda federaalka la tirkeedu ma ku dhiiratay inay go'aankii dhexdhexaadnimada ay gaartay ay ku qanciso dawladaha federaalka ka dawladda federaalka ee Soomaaliya. barnaamijka caawa arrimahaas iyo arrimo kale oo kamid yahay طبعا safiirka Imaaraadka Soomaaliya jooga oo ay xildhibaanada Soomaaliya ka keeneen mooshin ka dhan ah taas ay u mar doonaan wasaaradda arrimaha dibadda kadibna go'aan ka soo baxa ay dabcan u gudbin doonaan xukuumadda dawladda federaalka ee Soomaaliya. barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga caawa waxaa madashiila jooga Ismaan Cabdi Raage oo ku magac dheer Xooshow waa afhayeenka galmudug ee wadankan UK. sidoo kale barnaamijka qayb waxaa ka ah Ilyas Saciid Ali oo ah nin dhalinyaro oo arrimaha siyaasadda inta badan falanqeeya ee kuna nool magaalada London. sidoo kale barnaamijka qayb waxaa ka siya Cabdinaasir Ismaaciil Ali Cabdinaasir Ismaaciil oo ah saxafi Soomaaliyeed aqoon-yahan ah arrimaha bulshadana wacyigelinta aad ugu xeel dheer isla markaasna arrimaha guud ee Soomaaliyana ka hadla. qadka telefoonka barnaamijka waxa magaalada Muqdisho uga jira xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mareykanka iyo arigaasi North Americana waxa barnaamijka qadka telefoonka uga qayb qaadan doona Dr. Faisal Roble oo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed oo arrimaha siyaasadda kaga hadla shaashadaha caalamiga ah ee caalamka oo dhan. aan marka hore idiraahdo ku soo dhawaada barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga. waayahay intaanan madasha usoo gudbin aanan u gudbin mas'uuliyiinta kale bal nala daawada warbixin kooban oo loo diyaariyay wariyaheena Qadar Gaas oo studio home cable tan iyo markii dawladda diyaariyo ku saabsan qodobkan caaw ka hadlayno. taashoreys tan iyo markii dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ay go'aan dhexdhexaad ah ay ka qaadatay khilaafkii wadamada Carabta qaarkood u dhaxeeyay taariikhdu markay ahayd 6 June sanadkan 2017 waxaa soo baxay guux qanaacan la'aan ah oo ka soo yeerayay dawlad goboleedyada Soomaaliyeed qaarkood. Puntland ayaa 16 August sanadkan 2017 oo ku beegnayd 2 bilood iyo 10 cisho kadib xilligii dawladda federaalka Soomaaliya ay go'aanka dhexdhexaadnimada qaadatay soo saartay go'aan khilaafsankii ka soo baxay dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. sidoo kale Ali Cabdilaahi Cusuble madaxweynihii hore ee Hirshabeelle ayaa isla maalin kadib markii baarlamaanka Hirshabeelle kalsoonida kala noqday ka dhawaajiyay go'aan la mid ah kii Puntland inkasta oo uu maamul cusub yeeshay Hirshabeelle go'aankaasna aanay ku sii dhiiran. toddobaadkii dhaweyd ayay ahayd markii si wada jira labada madaxweyne ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo ku sugan dalka Imaaraadku ay soo kala saareen go'aan ka dhan ah kii dawladda dhexe ay ka qaadatay khilaafka wadamada Khaliijka oo ay si toos ah u taageereen isbahaysiga uu horboodayo Sacuudigu inkastoo maamulka Galmudug go'aankaas isku khilaafsan yihiin oo ay soo kala saareen laba war-saxaafadeed oo iska soo horjeeda. isla toddobaadkii hore bal nala daawada warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay kaga jawaabayeen sida muuqata go'aamadii ka soo baxay dawlad goboleedyada Soomaaliyeed. ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaar ku-xigeenka ayaa golaha wasiirada u sheegay muhiimadda ilaalinta sharciga iyo nidaamka dawladeed. kadibna golaha wasiiradu iyagoo tixgelinaya xaaladda dalku ku sugan yahay ayaa waxay isla garteen arrimaha ku aadan muranka Khaliijka ama wadamada Carabta arrimahan soo socda. golaha waxay si adag u aayideen mowqifkii dawladda federaalka ee bishii June 2017 ee qeexayay in Soomaaliya door dhexdhexaad ah ka taagan tahay muranka wadamada Khaliijka qaarkood una aragto in khilaafka jira lagu xalliyo si nabadgelyo ah oo ay walaaltinimo iyo diblomaasiyad ku dheehan tahay. dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku guuleysatay wada shaqaynta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka iyadoo qabatay 2 shir 6 bilood ee ugu dambeysay taasoo ay muhiimadu ahayd ka wada shaqaynta xoojinta amniga iyo midnimada qaranka.
sida ku cad qodobka 54 ee dastuurka ku-meelgaarka ee Soomaaliya dowladda federaalka oo keliya ayaa awood u leh go'aanka gaarista arrimaha dibadda difaaca muwaadinimada socdaalka iyo siyaasadda lacagta. 4 Soomaaliya weligeedba doorkeedu wuxuu ahaa inaynan wadamo walaalo ah lala kala safan oo mar walba laga shaqeeyo wadajirka wadamada Carabta, Afrika iyo kuwa Islaamka ah. haddaan tusaale usoo qaadano doorkii Soomaaliya ee heshiiskii Camp David ee dhammaadkii 70-meeyadii wuxuu ahaa in Soomaaliya ay diiday in xiriirka loo jaro dalka Masar taasoo keentay in markii dambe ee wadamadii Carbeed heshiiyaan go'aankii dhexdhexaadka ee Soomaaliya qaadatayna noqday mid lagu ammaanay. sidoo kale go'aankan muranka wadamada qaliiska qaarkood ee golaha wasiiradu maanta mar labaad ayiday waxaa soo dhaweeyay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo weliba beesha caalamka. haddaba su-aashii isweydiinta leh baa waxay tahay haddii dowlad goboleedyada qaarkood iyo dowladdii federaalka ahayd ay halkaas ka kala taagan yihiin oo aanay jirin maxkamad dastuuri ah oo kala saarta maxaa la gudboon oo tallaabo ah oo ay qaadi karaan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada Soomaaliyeed keebaa iska leh go'aanka gaaridda arrimaha dibadda. qodobka 54 ee dastuurka federaalka Soomaaliyana wuxuu ka qabaa doodan hadda ka dhex taagan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada qaarkood. arrimahaas ayaan caaw ku lafaguri doonaa barnaamijkeena dareenka shacabka iyo siyaasiga. Duraan Shirwac haye markaas oo warbixintaas noogu soo koobay dabcan qodobkan ka hadlayna caawa aan ku soo noqdo madash dabcan xooshow warbixintana waa degeysanaysay tan iyo markii dowladda federaalka Soomaaliya ay go'aanka dhexdhexaadnimada ka qaadatay khilaafka ka dhaxaloosan dalalka Carabta waxa soo baxay goox ka imaanayay dowlad goboleedyada ilaa iyo haddana saddex dowlad goboleed oo Puntland ay bilowday dabcan saa warbixinta ka degeysanaysay Koonfur Galbeed iyo dabcan galmudugna ay ku xigsatay baa dhacay. maxaa keeni kara islada qanaa la'aantaas? bismillaahir rahmaanir rahiim. marka hore waxaan salaamayaa daawadayaashaada iyo adiga iyo maamulka Hon Cable TV iyo milkiilihiisa saaxiibkay Farxaan. salaan kadib waxaan isleeyahay tilaabada dowladda ay qaaday haddii aynu ku qancin maamul goboleedyada waxaa laaban in dowladda marin procedure-kii la rabay in la maro. dowladda Soomaaliya waxaan ognahay inaan nahay dowlad ama dad ku heshiiyey in ay wax ku qaybsadaan 4.5 oo ah macnaheeda qabaa'il. siyaasadda institution isan ma laha dadku marka maadaama qabiil ay yihiin qabaa'il meel dega ay yihiin stakeholders ay saas u matalayaan madaxweynaheenana wuxuu noqonayaa kaaba qabiilka marka waxaa la rabaa inta uu go'aan qaadan ama tallaabo qaadin inuu la xiriiro kaaba qabiilada yaraa oo hoose. jufooyinka Soomaaliya dhaqankooda waxay leeyihiin suldaan ama ugaas ama malaaq ama saas oo kale laakiin waxaa ka hooseeya kuwa yar yar oo jilbaha hoose ah. marka waxaa moodaa qaabkaas oo kale dowladdeena inay u samaysan tahay. waxay iska wadaan maamul goboleedyada inay yihiin stakeholders dowladda inay wax ku leeyihiin wax walbana in lagala tashto xitaa. waxay ku andacoonayaan qodobka 53 inuu sheegay haddii wada xaajood la galayo oo dibadeed ma aha kaliya ahad haddii la galayo xiriir caalami haddii la galayo taa in lagala tashto ku qoro qodobka 3 si clear ah marka laga tago arrimaha iskaashiga iyo ganacsiga iyo maalgelinta marka laga tago. marka waxay leeyihiin nalama tashanin. waxaa ku tusinaya in oo hadalkooda oo macquul yahay 2 bilood iyo 10 casho Puntland ugu horeysay ay soo qaylisay markay dowladda go'aan gaartay kadib horay kama mucaaradin. waxaa moodaa in waqti la siiyay dowladda si la isku noqdo. marka meeshaas waxaa moodaa xoogaa in gaabis dhinaca dowladda dhexe oo ka jiro dhinaca maamul goboleedyada sidii la rabay inayna ula xaajoodin arrintan. marka guuxaan waa guux waxbaa qasbay baad leedahay maamul goboleedyada sida adiga waxaan isleeyahay dowladii aan u dhaqmin sidii dowlad oo kala go'an oo qabaa'ilaa inay tahay hilmaantay waxay isu qaadatay inay tahay dowlad dhexe oo power leh. marka waxay u dhaqatay sidii dowlad 54 wuxuu caddeynaa inay maamulka wixii arrimo dibadda iyo lacagta iyo ganacsiga sida uu sheegayay wasiirka warfaafinta waa sax waay ayadaa iska leh laakiin waxaa ka horeeya in la isfahmo intaan tilaabo la qaadin ka hor. isfahamkaasaa meesha ka maqnaa isleeyahay. way aad baa maastay Ilyas adigaan ku imaado. Ilyas dabcan arrintaas markay dhacday oo ka sharqamiyay oo hore Puntland baa ugu horeysay 2 bilood iyo 10 cisho kadib haddana markii dambe dabcan Cali Cabdullaahi Cosoble inkastuu hadalkaas yiri haddana kuma aysan dhiiran dowladda goboleedka hadda Hirshabelle maamulka cusub yeelatay. laakiin
toddobaadkii dhawada ayay ahayd markii madaxweyne xaaf ee galmudug iyo weliba madaxweyne shariif xasan ee koonfur galbeed ayagoo weliba Dubai jooga ay arrinta ku dhawaaqeen ma danta guud ee dalka iyo dadka eegeen mise dana gaara ayaa la dhihi karaa ay arrintaasi go'aankaas ay qaateen oo ku biyo shubanahay بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمان waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay naga daawanayso runtii gaar ahaan waxaan salaamayaa adoo ah wali duraan shirwac iyo maamulka TV-ga caalamiga ah Hon Cable TV iyo saaxiibada halkan la fadhiyo oo xoosho ka mid yahay oo Cabdinaasir ka mid yahay marka horta waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka barayna inuu Ilaahay tawfiiq noo waafajiyo Soomaaliya oo idin Ilaahay tawfiiq noo waafajiyo marka xigta su'aasha ay weydiisay intaan ka jawaabin waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar aan ka dhaho walaalkay xoosho su'aashii ahayd yani hore aad weydiisay runtii Soomaaliya burbur 20 sano burbur ka jira runtii inkastoo haddana sanooyinkan dambe aan ka soo kabanayno burburka dawladnimo runtii oo dawlad rasmi ah wadankii maanta ay ka codotay runtii waxaan oran karnaa dawladda dhexe go'aano waxaa jirto iyadoo ay awood u leedahay inay gaarto iyadoo haddana isla markaa go'aamanka ay gaarto haddana ay habboon tahay inay marka hore wadatasha ay kala yeelato haddaysan dhicin kadib haddana inay wadatasha kala sii yeelato laakiin meesha waxaa ka muuqato runtii in dawladda waxay iyadu xaq u lahayd inay gaartay haddana maamul goboleedyadiina iyaguna aysan wadadii saxda ah haday ay tabanayaan dhaliilo aysan u marin runtii iyaguna ay danahooda gaarka ah ay fiirsadeen oo dibadaha iyagoo jooga waliba go'aano iska qaatay runtii taa waxaa la oran karaa waa ayaan daro aad iyo aad u weyn runtii oo wadankeen maanta haysato runtii ma ku saxsano runtii taasi go'aanada ay gaareen runtii kuma saxsano anigu duraan waxaan ahay qof mas'uul ah gurigeyga ayaa maanta mas'uul ka ah ilmaha iyaga aniga aan dhalay iyo hooyadood diintu waxay faraysaa waxyaabaha qaar inaan kala tashto waxyaabaha qaarna aan kala tashanin haddana waxyaabahaas qaar aan kala tashanin haddana يعني wax iga mamnuucay ma jirto inaan haddana aan u sheega aan la socodsiyahay laakiin wax ii diiri kara ma laha aan kala tashanay inaan go'aankeeda aan gaarahay haddii go'aankaas anigu aan gaarahay awood uma laha iyagu inay dhahaan sidee ku dhici kartaa arrintaasi go'aanka ugu gaartay hadday dhahaanna waan kala hadli karaa laakiin inay go'aanka anigu aan gaar go'aan kale liddi ku ah inay gaaraan waxaad moodaa xoogaa yani in laga habooya maamul goboleedyadu dawladda dhexe hoos yimaadaan iyaga maanta wax badan loo qabtaa iyaga maanta deegaanadeeda ay wax badan laga caawiyaa iyaga maanta contribution runtii loogu deeqaa inay maanta dawladda iyagoo imaaraadka joogaan ay go'aano iskooda ay gaaraan maanta waxayna tusaysaa systemkii dawladnimo meeshaan ka taaganahay systemkii dawladnimo Soomaaliya meesha ka taagan tahay tusaysaa su'aasha labaad ay weydiisay runtii waxay ahayd su'aasha labaad ay weydiisay maxay ahayd adoor hale waa dabcan waa ina ka jawaabtaa filaaya dabcan maamul goboleedyada sida u aragtaa ayagoo dabada jooga go'aankan qaatay dabcan ina ka jawaabtaa waan kaaga jawaabaha aad baa maasta waayahay Cabdinaasir Soole adigan ku imaado labada su'aal duuban ku dhiibaa dawladda dhexe June waxay qaadatay go'aan dhexaadnimo guud badan baa yeerahay dawlad goboleedyada qaarkooda intaan ka ahayn dawlad goboleedyada Jubbaland oo dabcan wali ilaa hadda banaanka taagan iyo Hirshabeelle oo iyaguna aad moodinayso ku dhiiran go'aankii madaxweynaha hore soo saaray dabcan maxaa qanaanta keenay su'aasha labaadan ku weydiinay duubkan ku weydiinaya waxay tahay waa kuwii dabcan go'aanka dhinaca qaatay saddexda maamul goboleed ee Puntland iyo waliba Shariif Xasan oo jooga Dubai iyo madaxweyne Xaaf oo asna Dubai jooga madanta deegaanadooda iyo dalka guud ahaan bay arrintaas qusayn kartaa waad is leedahay sidee bal arrintaas noo fasiri kartaa waa mahadsan tahay Duraan iyo Hon Cable xoosho Ilyas idinkana waa mahadsan tihiin waxaan idin xasuusinayaa madaxweyne Farmaajo waqtigii la doortay xilli ku dhow wuxuu tagay wadanka Itoobiya isagoo markii dambena sikadiisa uga soo laabtay waayo wadanka ayaa arrin aad u xun ka dhacday hadallada uu yiri ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxay ahayd waxaan ka ballan qaadayaa ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ka ballan qaadayaa wixii maanta ka bilowda in state-yadan wadankeena ka dhisan ee federaalka ah aysan si toos ah u imaan karin Addis Ababa ilaa ay amar ka helaan oo meeshan ay soo maraan xilligii arrintan carabtu ay dhacday dadka xogaa dad badan ayaa la qalday waana ka maqlay dadka Galmudug iyo South West iyo Puntland inay yiraahdeen waxay la safteen qadar dawladda Soomaaliya qadar lama safan
dhexdhexaad markaa tahay iyo markaa la safan tahay waa laba arin oo kala duwan aan shaqo isku lahayn. marka waxay yidhaahdeen annaga waxaa naga dhexeeya ganacsi iyo wax walba iyo balaaya naga dhexaysa oo waxay ahayd in sacuudiga lala safto. dadkan hadda saddexdan state ee isdaba socda isdaba yaacaya waxay leeyihiin sacuudi iyo masar iyo xulafadiisa aan la safano, dowladda soomaaliya lama safan qadar. tan kale nin xilka haya dowladda soomaaliya ayaa wuxuu weydiiyey ra'yi ahaan see u aragtaa dowladda mowqifka ka qaadan doonto. waxaan idhi mahmahdii soomaaliyeed ee walaasha iskuma hobtide sidiga ha iska halayn halagu laabtaan idhi oo ah carab iyagaa daris ah, iyagaa iska kaa dhow, iyagaa walaala iyaga qaliisla ah, berrito anaga dhibaata naga soo gaaraysa haddaan meel aado. tiina waxay ku dhacday wadankan walaalaheena oo jabuuti oo dariska nala ah oo asbuuc kadib dhulkoodii eritrea ay qabsatay kadib markii ciidamadii qatar meesha ay ka baxeen. aniga waxaan aaminsanahay dowlad oo maartay central government oo xoog la awood leh aan aaminsanahay. aniga ra'yi ahaan ra'yiga aniga qaaska maba aaminsanin sida isteejidan wadankan qaabka loo kala qaybiyay. laakiin arintan dhacday maaragtay anigu ma aaminsanin muxuu yahay south west iyo puntland iyo waxa ka dhaxayn kara in federaalka iyo kamid ah ay tagaan wadan kale oo dowladii Soomaaliya ay ka dulboodaan waa big mistake. waxaana inta badan lagu murmaa qodobka 54 iyo 53 wax lagu murmo maray. 54 wuxuu sheegayaa difaaca arrimaha dibadda, siyaasadda lacagta, muwaadinka iyo socdaalka in dowladda ay u tahay. la tashiga wuxuu yahay markaa state kan dadka laga soo doortay xildhibaanada soo doortay xildhibaanadan local parliament ma joogaan oo ku yaala Baydhabo ama ku yaalo Cadaado ama ku yaala Garowe ma joogaan. waxay yimaadaan Muqdisho si federaal ay yimaadaan. marka wax walba la sameeyo madaxweynaha haduu yiraahdo waxaan rabaa inaan u duulo Sacuudiga bal aan la tashado yiraahdo wadanka sida kuma shaqeynayo duraan ummadda Soomaaliyeed lama baahan in la qaldo. arintan qalad ayaa lagu sameeyay, arintan waa laga soo shaqeeyay, waana qalad aad u weyn dastuurkana ma dhigayo. aad baa maastay way way soo wada noqon doonaa barnaamijka qadka telefoonka waxaan ku fiirinayaa xildhibaan Axmed Macalin Fiqi. xildhibaan Fiqi waa xildhibaanada ugu cad xildhibaanada Soomaaliya barnaamijkuna qayb ka yahay. aan marka hore iraahdo xildhibaan Fiqi ku soo dhaw barnaamijka dareenka shacabka siyaasiga. ودوي دران وانا ما سنتاري وهم علينا تلفزيونك شغله وناكسن ضل امته وهي waayahay xildhibaan su'aasha koowaad aan ku weydiinayo waxay tahay dabcan dhawaan waxa muran ismarwaaya oo ka dhaxdhacay dawladda federaalka ee qaar kamid ah dawlad goboleedyada Soomaaliya kaas oo ku aadan go'aanada ay ka kala qaateen khilaafkii wadamada Carabta. arintaasi sidoo aragtaa maxaa sababaad isleedahay? walaalo waa ma santahay arintaasi waa qadiyad weyn oo arrimaha dawladda Soomaaliya hor yaala kamid ah isla markaasna taabanaya wada jirka iyo midnimada iyo wada shaqeynta dawladda Soomaaliyeed ee ku dhaxjiraan dawladdeedii iyo shacabkeedii. arintaas runtii waxay aniga xildhibaan ahaan ila muuqataa waxa dhibka ugu weyn ee dalka haysta uu yahay waa dastuurka ku meel gaarka ee federaalka ayaan si wacan u kala cadeynayn يعني رولك دولة الدحية iyo dowlad goboleedyada isla markaasna shuruucdii loo baahnaa dowlad goboleedyadu inay ku samaysmaan oo raacaan ma jiraan ba meeshaba ma yaalaan. dowlad goboleedyadii way iska samaysmeen umanahooda qoorta ugu jira. dowladdii dhexena dee waad ogtihiin oo caqabaad tiro badan oo amni iyo siyaasad iyo dhaqaale iyo lehoo iyadan aan u suurtagelinayn inay xakamayso ama waajibkii ka saarnaa dalka oo dhan inay gudato. caqabaad ayaa hor yaalla. marka waxaan isleeyahay sidii la rabayna maamul goboleedyadu hadda uma xushmeeyaan umana maaragtay tixgeliyaan dowladda dhexe iyo roolkeeda. marka waxaan isleeyahay arrimo badan oo isdhex yaalla iyo dalkoo foodo iyo maaragtay kusoo muddo ku jiray oo madaxda iyo maaragtay kulligood dadkuba wax badan ay ka qaldan yihiin. marka waxaan isleeyahay guud ahaan hadda murankani waxaa garta anigu dhankii aan u badinayaa dhanka dowladda dhexe inay gar ku leedahay in lagu xushmeeyo qodobada kooban iyo shaqada kooban oo dastuurkani uu siiyey. dastuurkanna markii la samaynayaaba waxaa moodaaba in lala dirirayay in dowlad Soomaaliyeed oo xooganiba
ay dalka ka hana qaado marka 4 qodob oo yar yar ayuu siinayaa qodobka 54 afartaas qodob oo isku jirta maaragtay arrimaha dibadda iyo difaaca iyo lacagta iyo immigrationka iyo jinsiyadaha afartaas qodob bay ayay siinaysaa hadda waxa muranku ka taagan yahayna waa qodob ka mid ah qodobadaas oo ah qodobkii arrimaha xiriirkii arrimaha dibadda oo dawladda dhexe ay lahayd mawaaqifteeda inay qaadato si ay ku qaadatay sax miyay ahayd qalad bay ahayd ma waxbaa ka dhimanaa waa gaar laakiin waxay u leedahay xaq ayay ahayd marka in laga daba qayliyo oo warqada laga soo daba saaro oo lagu daba dhego runtii arrintaasi waxay u muuqataa dee waa caasinimo caasinimo ayay noqonaysaa marka waxaan aaminsanahay inay ahayd qalad go-aankaas inay dowlad goboleedyadu ay soo saaraan waayahay xildhibaane maadaama aad ka mid tahay golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ah hooyadii dastuurka federaalka soomaaliya oo gacanta ku haya qodobada ay kala xigteen dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya oo ah qodobka 53 iyo qodobka 54 markaad fiirisid arrimahan yaa iskale oo xaq u leh qodobadaasi keedaa xaq u leh inuu maaragtay arrintan isaga ahay aan lagu faragelin anigu waxaan isleeyahay horta waa mahadsan tahay keebaa xaq leh waxaa soo saaraya keebaa saxan maxkamad hadday jiri lahayd ayaa lagu soo saari lahaa laakiin haddii aragtideena aan ka hadalno maadaama qodobadii ay af soomaali ku qoran yihiin qodobkaas 53 wuxuu leeyahay waxyaalaha masiiriga ah waxay arrimaha go-aanada masiiriga waa in lagala tashadaa dowlad goboleedyada qodobka 54 wuxuu leeyahay arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha dibadda go-aanka gaarideeda waxa iskale dowladda dhexe marka waxaan isleeyahay wax arrimo masiiri ah oo dowladda dhexe hadda ay go-aan ka qaadatay maba jiraanba waa arrimahaani masiiri maahayn carab maaragtay khilaaf ka dhacdhacay ayaa dowladda soomaaliya tiri dhexdhexaad baan ka nahay waxaa daraan lahayd inay tiraahdo dhinac waan la safarnahay taasi haddiiba go-aanka saas loo qaadan lahaa baa la dhihi lahaa masiiri waxyaalaha masiiriga ah soo gelaya laakiin dhexdhexaad baan ka nahay in la yidhaahdaay waa waxa ugu yar oo dowladda soomaaliyeed ay dhihi lahayd waaye waxa ugu yaraabay tiri oo mawqifkii ugu yaraabay qaadatay marka wax masiiriyana ma ahayn dhexdhexaad baan arrintaas ka nahay marka waxaan isleeyahay dowladda dhexe ayaa saxda ku taagan carab dirirtay dab isugu shididooda iyo la kala safashadooda wax dana dowladda soomaaliya uma jirto dad walaalaheena weeye dadaan diin iyo maaragtay dhaqan iyo wax badan wadaagno ayay yihiin inaan xasradda ka dhex taagan aan si miyira ula macaamilno khasaaraha ugu yarna uu naga soo gaaro haddiiba khasaare uu jiro oo aysan ugu dul diririn ayay tahay xigmaddu halkaasi ku jirtaa laakiin runtii kala yaaca iyo maaragtay kala faquuqa iyo kala qaybinta dowladaha qaar carabtu ay hadda samaynayaan wax sax maahan oo weliba haba ugu weynaato dowladda imaaraadka waaya xildhibaane waxaa la sheegay inaad mooshin xildhibaanada ay ka keeneen qaar adiguba inaad ka mid tahaan u malaynayo sidii loola xisaabtami lahaa safiirka dalka imaaraadka carabta u jooga dalka soomaaliya oo shaqadiisa shaqo ka siyaadaha ka wada dalka gudihiisa mooshinkaasi ma jiraa haddii uu jirana qaabkee u maraysaan in loola xisaabtamo safiirka imaaraadka u jooga dalka soomaaliya adeer waa mahadsan tahay mooshinkaasi waa jiraa safiirka imaaraadka dowladda carabta imaaraadka u fadhiyana wuxuu noqday far soo dheeraatay oo siyaasadda arrimaha gudaha ee soomaaliya ziyaado ku ah habdhaqankiisuna uma dhaqmayo sida safiirada kontonka ku dhow oo soomaaliya jooga si ka duwan buu u dhaqmayaa horay waxaa dalkan u ragaadiyey nin gabre la yidhaahdo oo etoobiyana ayaa dhibaato xoogan ku hayay iyo faragelin siyaasaddeena arrimaha gudaha haddana gabre carbeed baa noo yimid oo isaguna maaragtay si aan anshax ku jirin arrimaha maaragtay soomaaliya iyo siyaasaddeeda usoo farageliyey haddaan tusaale yar usoo qaadano ee saldhigga militariya berbere lagu samaynayo dhulka soomaaliya ka tahay iyadoon dowladda dhexe ka warqabin buuna wax ka sameeyey dowladdii hore madaxweynaheedii xasan sheekh maxamuud buu inta shir ku qabtay dalkiisu maamul goboleedyada wuxuu yidhi ninkaas waxaan rabnaa inaan ridno
lacag buu inta maamul goboleedyada soo siiyey yiri xildhibaanada hebel iyo hebel iyo hebel listi aan annaga ku jirno ayuu yiri maamul goboleedyada inta uu qaybiyey lacagtaasna qaata dadkaasna ayaysan baarlamaanka Soomaaliya soo gelin ciidamo iyo maleeshiyaad iyo balaayo dhan buu wadaa haddana dee waa u jeednaayo maamul goboleedyada u dambeeyey waxa sida uu ula dhaqmayay sida uu dawladda Soomaaliya يعني ربا إنه وقعيه مركز دمان هبدقنكاسي وحي نقطي واحد زيادة كوا يعني دبلوماسية ده نود حينجي في إمارات يعني هاي عند الاحترامه وقانون الصومالية يدول النمط الاحترامه مركز حلوانا دي مركز دولة دي هل ويري حكومة دي هل ويري مدحوينه انت لو يدي سلكي ملترية وكجواب واي جواب كبحي واي وكسر كوابي وإيجو الرئيسي waxay noqotay inaan roolkeena qaadano oo doorka xildhibaanadu ay qaataan oo iyagu ay intay xil qaamaan ay qadiyadaas horgeeyaan baarlamaanka golaha shacabka oo dadka Soomaaliyeed iyo gobolada Soomaaliyeed oo dhanba ay ka wada kooban yihiin arintana halkaas lagu qaadaa dhigo lana yiraahdo intii la aamusnaan lahaa iyadoo wax qarimayaan in la sheego khaladka kadibna khaladka cidda wada inta wasaaradda arrimaha dibadda u yeerto inay kula xisaabtanto tiraahdo naga daadee waa naga badbadisay waaya xildhibaane su'aasha ugu dambaysa ku weydiinayo waxay tahay adoo ii soo koobayo waliba waxaa jira muran xoog loo dhex yaala madaxda sare ee dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo adiguba aan filahayo xildhibaanada ka soo jeeda inaad tahay maxaa kula dardaarmaysaa madaxda sare oo waliba caawa ugu dambeysay go'aano kala gedisan soo kala saaray runtii aad baan uga xunnahay in dhagaheena ay ku soo dhacaan in maamulkaas curdinka oo isaguba la daana dhacaya abaaraha iyo colaado tiro badan deegaanka weli abaarihii ay ku hareen oo dadkii deganaayoo dhan ay ka qaxeen in maanta ay ugu sii darsanto haddana xasilooni darro dhexdiisa oo xagga maamulka ka dhex dhacda ayna sabab u tahay arrimahan hadda lafteedaan ka hadlayno carabtan murankooda ka dhex taagan in loo soo raray murankii gudaha Soomaaliya oo maaragtay lacago maaragtay meelo kale ka yimid loo adeegsanayo in maamulkii lagu dumiyo marka runtii waxaan leenahay aad baan uga xunnahay haddaan xildhibaanada waxaanan ugu baaqaynaa cidna waxbaa la riday iyo waxbaa xagga laga riday waxay anfacaysa Galmudug wax nacfiya oo ugu jira ma jiraan xildhibaanada labada aqal Galmudug laga soo doortana arrintaas way ka hadleen waxayna ka taagan yihiin mowqif ah in maaragtay la isku soo jiido muranka u dhaxeeya madaxda sare iyo muranka u dhaxeeya Galmudug iyo dawladda dhexe intaba in la isku soo jiido oo meelkii awal ay joogtay la keeno Galmudugna kama dhex bixi karto dawladda dhexe oo waxa weeye dawladda dhexe u weyn dalka isla markaasna dawladda dhexena kama aarsan karto sax maahan inay uga aarsato mowqifkaas Galmudug ay gaartay madaxweynaheedu uu gaaray in la yiraahdo ha looga aarsado inta lacag iyo dad la diro la yiraahdo hal la rido taasna wax sax maahan marka xildhibaanadu diris wax bay ku bixi doonaan hadii la yiraahdo waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysan doono inaan soo xalino kaasi wuxuu ahaa dabcan xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo magaalada Muqdisho ugu jiray barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga aad baan ka mahadcelinaynaa xooshow adigaan ku imaado xooshow sida dastuurka kumeelgaarka qodobkiisa afraad 54 uu qabo waana ka dhawaajiyay 53aad dabcan waxbaa la kala sheeganaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya haddii aysan hay'ad dastuurkii maxkamadda dastuurka aysan jirin baarlamaanka federaalka Soomaaliya labada aqal arrintaasi meel ma uga bannaan tahay in arrintaas halka gaaraan waa uga bannaan tahay laakiin intaan gelin see uga bannaan tahay waxaan rabaa inaan ku noqdo warka walaalkay Cabdinaasir arrinta uu aaminsan yahay oo ah dawlad central ah oo maamul goboleedyo ma aaminsan oo dhahay waa soo dhaweynaya ra'yi kastana waa ixtiraamaya laakiin waaqic aan ku jirno waxa waaye maamul goboleedyo sida aan dawlad ku qaybsanana waxa waaye 4.5 waa lagu jira waa laga dhaxgalay ana waaqican inaan inkirno marna lama rabo ani waa jeclaa Soomaalinimada iyo central government oo xoog leenahay laakiin hadda maxaan ku sugannahay waxaan ku sugannahay inaan nahay reero 4.5 lagu qaatay Cabdinaasir kursigiisa haddii qof uu ku fariisto asoo ability u leh shaqaas qaban karo powerkeedii aqoonteedii wax walba leh waxaa looga qaadayaa 4.5 qof kale taa joogo waxaa loo baahan qof reebo leh xaaladda aan ku sugannahay marka marna ma inkiri karno inaan nahay beelo wada degay
waxaana mar walba xoojinayaa qodob iyo dastuur waxaa ka horeeya dadku inay wada tashtaan ay wax isku gaaraan. gobollada marka waxay ka mid yihiin dadka wada dhistay dowladda. therefore waxaa la rabaa gobol walba in la qanciyo inta aan go-aan la gaarin ka hor. dowladda xaq ma u leedahay iyo xaq ma u laha ma ka hadleen, sida fiqi iyo akhyaarta qaar ay ka wada hadleen. 54 dowladda wuxuu siinayaa inay leedahay arrimahaas 5 ama 4 la sheegay oo jinsiyadaha caalamiga iyo heshiiska fulaan lacagaha waxaas oo dhan ayada iskale. laakiin before ayna sameynin 53 waxaa ku qoran wada xaajood inay la gasho maamul goboleedyada oo federaalka. haddayna wada xaajood la gelin oo ayna la tashanin oo ayna ka dhaadhicinin arrinta ay tilaabada ay qaadayso dowladda, waxa waaye disrespect waaye dowladda inay yareysatay gobolladii oo ayadu sayrabta u taklifalayso. dowladdan marka ma aha dowlad dhexe oo xoog leh. haddii marka sida oo cabdinaatir aaminsan yahay laga yaabo farmaajo iyo khayr inay aaminsan yihiin waaqica ha usoo degaan, waaqica inay usoo degaan oo ay fahmaan dadkan inay yihiin dad oo qabiilaha la isu keena, qabiil walba in la qanciyo u baahan yahay. taa markaan ka tago su-aashaada aan usoo laabto, xildhibaanada waxaa uga banaan qeexitaan mar walba haddii qodobo la isku qabsado. cidda qeexi karta waxaa waaye xildhibaanada waa ayagaa golaha sharci dejinta meesha u taagan. marka waxaa la rabaa inay qeexaan dhahaan saas iyo saas iyo saasaa looga jeedaa qodobkaas. waxaa laga yaabaa qodobka 53 oo aan leenahay wada xaajoodka arrimaha caalamiga ama cahdiyada xiriirka heshiisyada caalamiga oo la galayo in oo si kale looga jeedo aynaba ahayn sida maamul goboleedu u fahamsan yihiin. waxaa la rabaa inay qeexaan oo sharxaan oo guddi loo bixiyo, guddiyo hoosaad yaa la sameeyaa oo arrimo walba jilciyo. marka waxaa u banaan ayna ka gaabiyaan islaha xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed inay qeexaan qodob kasta oo la isku qabsado. hal qodob waxaa ku doodaya gobolkii, qodob kalena waxaa ku doodaya dowladda dhexe. marka cidda heshiisiin karta labadaas qodob intaan la gaarin maxkamadda dastuuriga iyo dacwo iyo waxaas oo dhan waxa waaye xildhibaanada oo booska soo bannaaya. saasaan isleeyahay. aad baa maasta Ilyas, adigaan ku imaado. Ilyas, su-aashaas u dhow baarlamaanka wadda uga furan tahay buu yiri haddii dowladdii ay taagan tahay annaga qodob 54 annaga afartaas waxyaabada xaq u leh dowladihii hadda arrintan go-aanka sida dadban u gaarana ay leeyihiin 53 yaa kaloo xaq u leh arrintaasi bal inay faragelin ku sameeyaan oo ay isfahansiiyaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada Soomaalida oo hadda arrintan taagan. durano horta Soomaaliya way dhiban tahay, waa wadan dhiban. ilaahay dhibka naga saaro. waxaana fiican runtii markaan ka hadlayno dowladnimadu wax sahlan maaha. dowladnimadu waxay u baahan tahay dulqaad fara badan ay u baahan tahay. dowladnimadu waxay u baahan tahay in mar walbaba la ilaalsado ay u baahan tahay. waxa weeye nimankani walaalaheena ah maamul goboleedyada madaxda ka ah haddii ay wax tabanayaan waxay la habboonayd anigu inay tabashadooda ay si toos ah madaxda dowladda dhexe ee Muqdisho yacni xaratooda ay tahay inay toos u tagaan ay kala hadlaan arrintaa. haddii say ku doodayaan hadda oo ah yacni danta ummadayna ayaa anagu aan ka talinaynaa, waxay ahayd danta ummadda inay ku warceliyaan ee anagu nagu soo warceliyaan ay dhahaan nimiyahow saasaa jirtay maxaa xal ah. cid waxna su-aashay ma laha, anagu shacabkii aan nahay. cid aragtideena weydiisay ma laha. so waa tan hadda sabab u noqotay yacni cadaado wax ka dhaca ujeedaa maanta waa ninkii xaaf ahaa madaxweynihii galmudug in xilka laga qaado. taa maxaa sabab u ah shacabkii dareenkooda cabireen oo ah in dowladda dhexe waxa kan ay samaysay iyadu ay dastuuriyan xaq u leedahay in looga dambeeyahay in la baxaahi wadan dibadeed la tagaahi. waxaa muuqata yacni in waxa la sameeyey ama go-aanada la qaatay inay yihiin go-aano ku salaysan yacni dana khaas ah oo Shariif Xasan iyo Gaas iyo Xaafba danaha guud inay ka hormariyeen danahooda khaaska ah meesha nooga muuqata. midda labaad su-aasha kale ay weydiiso ah yacni yaa go-aankeeda. anigu waxaan qabaaba dowladda dhexe shacab rabitaan shacab ayay meesha ku joogaan. haddii dowladda dhexe oo ulul amriga ahaa loo yacni ishaag maxay ahayd loo hoggaansami waayey, shaqadeeda loo dhaafi waayey, lagu tixgelin waayey, anigu waxaan qabaa intaan lagu mashquulinba baarlamaanka dhexeba loo gudbinba arrintaani. inkastoo baarlamaanka dhexe dastuuriyan uu awood u leeyahay inuu arrintaani uu maadaama maxkamad sare dastuuriya aysan waddan ka dhisnayn uu go-aan ka gaarahay, laakiin waxaan qabaaba intaan la gaarin baarlamaanka dhexe wax walba loo gudbinin annagu haddaanu nahay shacabkii inaan ka dareen bixino annaga iyo xildhibaanadeena maamul goboleedyada sida haddaba cadaado ay ugu dareen bixisay. waxaan qabaa in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado hogaamiyaasha maamul goboleedyada. aad baa maasta way sida ugu dhaqsiyaha badan saasaan qabaa. way aad baa maasta Cabdinaasir
dabcan qodobka dastuuriga labada dhinac cuskaday waana sharaxday yaa xaq u leh inay soo dhex galaan golaha baarlamaanka labada aqal golaha baarlamaanka xaq ma u leeyihiin arrintan inay waayigii mooshinada aadka ugu caanbaxay mooshinada mar walba keene inay arrintan mooshin ka keenaan oo ay yidhaahdaan saasaad ku qaldantahay saasaa ku qaldan go-aanna ka soo saaraan haddii labada aqal baarlamaanka ay soo dhaafto yaa kaloo xaq u leh haddii la kala taagan yahay halkaasi halkaas inay arrintaasi wax ka yidhahdaan inkastoo madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe uu yiri gogol baan naga hayaa oo arrintaas ku saabsan kusoo dhow maxaa ka dhilaa waa mahadsan tahay gogol uma baahna waxay u baahan tahay sharci ayay u baahan tahay ugu horeyn sababta court of constitutionka ama maxkamadda dastuurka loo keeni waayo dastuurkiiaba qabyo ah hadda waxaa lagu jiraa saa la socotaan xoosh iyo dadkiisa kale oo la shaqeeya ay sameynayaan dib u eegistii waxyaalo badan ayaa socdaan laakiin haddii dastuurkan kumeelgaarka uu ahaan lahaa mid la saxay oo sharci laga dhigay waxaa jiri lahayd maxkamadda dastuuriga kadibna xataa haddii laysku qaban waayo racfaan in la qaata kadibna maxkamadda sare sidaan ku aragnay 2000 doorashadii ka dhacday waddanka Mareykanka George Bush ay isku qabsadeen oo markii maxkamadda ay ku kala saartay laakiin hal mar wax inaan ku soo celiyaan rabaa 53dan oo dastuurka oo dadka ay confusionka looga dhigay ama lagu jahwareerinayo aniga waxaan aaminsanahay siduu xooshu aaminsan yahay oo ah ma fahmin dadka annaga kuma shaqeyn karno maamahadii Soomaaliya la jiifiya banaan joojiyana banaan dadku waa inay ogaadaan dadka baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka kale waxay ka soo jeedaan sidoo asaga sheegay oo aan ognahay in qof walba uu ka 4.5 u gobol ka yimaaday dadkaas ayaa ka mas'uula hadda waxa loo baahan yahay xilligan la joogo waxaan aaminsan yahay aqalka sare iyo aqalka hooseba qof walba oo ka soo gala wuxuu ka yimaadaa goboladan hadda muranka ay dhibka wada waxa la leeyahay cod hal la sameeyo cod hal la qabto ereyga dimuqraasiga wax qaraar cod haddii la qabto oo majority lagu badiyo qofkii majority ayaa la raacsiinaya la siinaya laakiin dawladda Soomaaliyeed ee dhexe in nin walba diyaarad ingeera intuu ka qaato cadaado iyo baydhabo iyo garoowe uu carab u tago oo soo saxiixo hantidii waddanka iyo waxyaalahaas ma socona haddii kale waxay noqonaysaa berrito waxa laga hadlay mar dhow oo la lahaa haddii berri laga helo ceel batrool laga helo cadaado ama baydhabo ama garow haddii laga helo dawladda Soomaaliyeed go'aan hore kama gaari karto waa in wada tashi la sameeyo marka haddii la dhaho wada tashi waa noocaas wada tashi kale kana waa noocaas laakiin la jiifiyaa banaan la joojiyaa banaan kuma shaqeynayso sharciga sababta loo sameeyay constitutionka loo sameeyay dastuurka loo sameeyay waa dadka in lagu kala hagaa laakiin dadka ma rabaan sidoo Ilyas ku raacsanahay danta gaarka ayaa wax walba ka weyn dadkaas waa la yaqaanaa si fiican loo aad master waaya qadka taleefanka iyo Mareykanka ka fiirinaya qadka taleefanka magaalada dalka Mareykanka waxa uga jira Dr. Faisal Roble oo inta badan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya marka ugu horeysa aan iraahdo Faisal kusoo dhawo barnaamijka dareenka shacabka siyaasiga waa soo dhawahay duraan madsanta waayahay Faisal su'aasha koowaad ku weydiinaya waxay tahay dabcan waxa muran xoog leh u dhex yaala qaar ka mid ah dawlad goboleedyada Soomaaliya iyo dawladda federaalka taasoo ka dhalatay dabcan khilaafka u dhaxeeya wadamada Carabta oo labada dhan ay la kala safteen arrintaasi sidee u aragtaa adigu ka aqoon ahaan anigu shakhsi ahaan anigu aadiya ugu doortamay intii hore dawlad goboleedyada gaar ahaan markii ay jilna Soomaaliya khaldanay waqtigan xaadirka aynu joogno aniga waxay ila tahay in dawlad goboleedyada ay ka mid yihiin Puntland koonfur galbeed iyo galmudug ay aad iyo aad ugu khaldan yihiin arrintan ay farageliyeen ee ku saabsan khilaafka dawladaha khaliijka iyo mowqifka ay dawladda dhexe Soomaaliya ka qaadatay waayahay Faisal dabcan marka dib u milicsato dastuurka Soomaalida u yaala labada dhanba waxay kala cuskadeen qaar waxay cuskadeen qodobka 53aad qaarna dawladda federaalkana waxay cuskanaysaa qodobka 54aad oo iyadu xaq u leedahay wasaaradda arrimaha dibadda marka fiiriso labada qodob oo la kala cuskanayo sidee u aragtaa baad isleedahay horta labada qodob way jiraan oo qodobka 53 wuxuu ka sheekeynayaa wada shaqaynta laga rabo in ay yeeshaan dawladda dhexe ee federaalka iyo dawlad goboleedyada farqiisa labaad qodobka 53 waxa uu si cad u qeexayaa in arrimaha khuseeya dawlad goboleedyada inay federaalku kala tashato tanana ay ka weydiiso arrimahaas waxa weeye for example haddii maanta laga helo saliid gobolka Puntland dawladda dhexe inay iska laabkacdo oo maahe waa inay kala tashataa dawladda Puntland iyo dadkaas
arrintaas loo xeerin lahaa laakiin inaba qodobka 53 ma sheegayo 4 meelood ee loo qoondeeyay dowladda dhexe iyadu inay mas-uul ka tahay gaar ahaan qodobka 1 oo ah arrimaha dibadda in ay ku soo farageliyaan ama ay faraha kala baxaan dowlad goboleedyada inaba ma sheegayso kenya waxaa dii loo baahdo meelaha munaasibka ay ku tahay dowladda dhexe waa inay talawadaad kala yeelataa dowlad goboleedyada laakiin wax habeynayaa ma jiro aan ka ahayn waxa ummadda soomaaliyeedba ay la qaybsanayso dowladda saddexaad markay arrimaha dibadda ka sheekaynayso in iyadana ay kala sheekaysato haddii ay iyadu rabto intaa wax dhaafsan ma jirto inay kala tashanayso qodobkan 53 ee khaladka loo fahmayo gaar ahaan sharciisa labaad waxa weeye waxyaabihii si gaara u khuseeyo dowlad goboleedyada qaarkood in ay dowladda dhexe kala tashato marka ay wax qabanayso iyo waxyaabaha dalka khuseynaya inay kala wadaag sida stakeholders waxa la yidhaahdo ay ka qayb geliso sida adig iyo aniguba aynu stakeholder u nahay intaa wax dhaafsan ma jirto markaa si khaliday u fahmeen dowlad goboleedyada madaxdoodu waana ku qowleysanayaan qodobka 53 in ay u daafaan dowladda dhexe arrimaha dibadda iyo 3 qodob kale soo raaco inaan hadda ka sheekeynin ayaa sharciga dalka u yaala qoraya Faisal haddii ay halkaas kala taagan yihiin hadda oo maxkamaddii dastuuriga ahayd oo dastuurkii sharaxaysana aysan weli la samayn yaa xaq u leh arrintan haddii ay ismari waayeen inay farageliyaan ma baarlamaanka xaq u leh labada aqal ee baarlamaanka mise maxkamadda sare sharciyan baarlamaanku waa sharci dejiyaha dalka marka haddii aanay maxkamadii jirin mar alla marka baarlamaanku doono haddii uu qabto kulan waa ku dari karaa ama turjumaad waa ka bixin karaa ama caddayn waa ka bixin karaa waxa kale oo caddayn ka bixin kara wasiirka loo xil saaray ilaa inta meel laga gaadhay ama maxkamadda sare la dhisayo wasiirka loo saaray constitution oo hadda gacanta ku haya qorayana dadkii soo qorayna ka mid ahaa fakar waa ka bixin karaa laakiin dowlad goboleedyada inaba uma banaana inay iyagu ku sameeyaan waxa la yidhahdo interpretation ama turjumaad ama fasilaad qodobyada laysku hayo way ka hadli karaan oo waxay odhan karaan stakeholders baan nahay adigii aniguna stakeholders baan nahay waa ka hadli karaa laakiin ma caabiyi karaan ama caqabadna kuma furi karaan dowladda dhexe markay arrinta siyaasadda dibadda noqoto marka baarlamaanku haddii uu ka fadhiisto arrintan uu ka munaaqashoodo wuu ka gaari karaa qaraar markaa ay ka wakiilayaan hadafka ummadda soomaaliyeed iyo arrintan siday tahay su-aasha ugu dambaysa oo ku weydiinayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa la sheegay inuu diyaarinayo mooshin dabcan xildhibaan fiqi oo barnaamijka qayb ka ah uu cadeeyay in mooshinkaasi jiro mooshinkaasi waxaa laga keenay safiirka Emirates u fadhiya Soomaaliya oo fargelin xoog la ku haya iyo gacan dhaaf arrimaha gudaha Soomaaliya arrintaasi marka aad fiirisid sidee u aragtaa Faisal horta baarlamaanku day ma aha fulin oo nin safiir dalka kama saari karaan ama uma sheegi karaan sidii u shaqeeyay arrintaasi waxay u taallaa golaha fulinta prime ministerka iyo madaxweynaha baarlamaanka keliya waxaa looga fadhiyaa iyada inay sharci dejiyaan qaraar soo saaraanna way karaan laakiin fulinteeda shuqulkumada markaa haddii inta ay shiraan ay yidhaahdaan safiirka abudaday waa ku xadgudbayaa dalka qaraar ay soo saareen buu noqonayaa laakiin arrin ay fulin karaan iyagu maaha fulinta waxay u taallaa madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo wasiirka koowaad ee xasan khayre iyo golaha fulinta oo dhan haddii ay la shaqayn kari waayaan safiirka abudabi ka fadhiya Soomaaliya waa kala noqon karaan waana biri karaan aad baad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Dr. Faisal Roble oo qadka taleefanka barnaamijka uga jiray soo jooga dalka Mareykanka Faisal aad baad mahadsan tahay madashan ku soo noqonaya xoosh adigan ku imaanaya
xooshow waxaad afayeen u tahay maamulada go-aanka iyaguna dhanka kale u qaatay oo gobolka wadankan ingiriiska ad afayeen uga tahay sida hadalkaa ka muuqdana qanac la-aan baa ka muuqata laakiin aqoon-yahano badan iyo waxgarad adiga kula mid a baa waxay qabaan in dowladda federaalka soomaaliya markay go-aankan gaartay ayna mas-uuliyiinteeda ugu sarreysa sidii la rabay uga gadin go-aankan ay gaareen dowlad goboleedyada qaarkood iyo kuwa hadda macnaha go-aanka kala qaataba dhanka kale marka la yidhahdo idinka laftirkiina waa laydin eedeynayaa dowlad goboleedyadiina arrintan go-aankan qaatay waxaa la leeyahay interest gaar ah bay meesha u aadeen oo wax weyn dalka iyo dadka kuma soo kordhinayaan inta badan arrintaas maxaa uga jawaabaysa waxaan uga jawaabayaa horta waa mahadsan tahay waxaa jira waxyaabo badan oo aan shacabka u sheegno laakiin xaqiiqada ka fog مثلا walaalka Ilyas wuxuu dhahay rabitaanka shacabka dawladda lagu doortay shacab sanadiiqtiga oo codeeyna ma laha shacabku wax way rabaan laakiin waxa ma sameyn karaan waxaan dhihi karaa aniga rabitaanka shacabka iyo baarlamaanka xilligan jooga iswaafaqay markaas dawladdan ku soo baxday dawladda marka waa loo riyaaqay farmaajo ii geeyay khayr ii geeyay 6 bilood waxaan ka dhursugaynay dawlad fiican oo dadka u noqon karto kaaba qabiil mid hoos ugu daadegaya dadka isku soo dhaweynaya dadkan kala fogaaday dawlad dhexe noo soo noqon karta rajo noocaas sugeen rajadii waxay noqotay maamuladii dawladii hore ee ku guuleysatay inay sameyso inay kala jijibiso Ali Cabdullaahi Cosoble maamulka Hirshabeelle wuxuu ku tagay aragti oo qabay xaafin caaw wuxuu ku tagayaa oo la rabaa in lagu tagsiyo aragti oo qabay fiir qof haddii aragti adig kaa duwan oo qabo halkeeda maaha in asaga meesha ka bixiso oo remove garayso halkeeda waxaa in la wada xaajoodo ayadoo la wada joogo maamulkan waxaa ku baxay qarash waxaa ku baxay waqti waxaa lagu dhisay si ilaahay og yahay marka in si sahlan oo basiida waa iga aragti duwan yahay fiir haddaa dadka aragtidaada ka gedi karin oo aadan lahayn dulqaad iyo kaaba qabiilnimo soo dhaweyn oo aad wax isku wadwadi karin ma noqon kartid mas-uul oo rasmi oo jira ani marka waxaan isleeyahay maamul goboleedyadu waxay ku saxan yihiin ma dhahayo go-aankay qaateen in khaliij la raaco iyo in qadar la raaco la socdaya waxaan leeyahay waxay ku saxan yihiin 2 bilood iyo 10 casho ee waxay ka dhursugayeen go-aankan la qaatay inuu la qaldan yahay la isku soo noqdo laga wada hadlo dawladdii waa ignore garaysay inay ka hadasho go-aankeedii ku adkaysatay 2 bilood iyo 10 casho kadib maamul kasta wuxuu fiirsaday marka asaga maslaxadiisa iyo shakhsigiisa ma ahane dalka iyo dadka interestigooda markaan fiirino interestiga aan ku qabno khaliijka iyo kan aan ku qabno qadar waxaan isku barbardhigi karna ma aha morally aniga xoosho ahaan markaan aan joogo waxaan raacayaa siyaasadda qadar iyo in dhexdhexaad laga noqdo qadar ama qadar loo hiiliyaba leanna ayadaa laga dulmaaya waa dulmantahay qadar laakiin markii la fiiriyo political interest ma laha arrin moral iyo arrin akhlaaqi ah ma aha siyaasadda waxaa waaye interestiga dalka waay iyo dadka waxaa la fiirinayo marka haddii dawladda farmaajo ay u dhalatay danta dadka iyo dalka waxay ku jirtaa danta dalka iyo dadka khaliijka oo xoolaheena yaalaan xawaaladihii iyo ganacsiga iyo waxaas oo dhan sacuudiga oo ah weligeed saaxiibka ugu horreeya nala taagnaa markii farmaajo la doortayna kow dawladda ugu horreysa oo casuulta oo mataqaana martiqaad u fidaysa waxay ahayd dawladda sacuudiga u ballan qaaday lacago marka dhankaasaa fiican baad leedahay aniga waxaan leeyahay waa mahadsanta adigana waxaan leeyahay laakiin aan soo khulaasay aan soo koobo waxaan leeyahay dhexdhexaadnimada iyo dhinac raaca waxaa ka sokeeyay gaabka 2 bilood iyo 10 casho waxay ku feelgarowday dawladda inay maamul goboleedka ku qanciso go-aanka ay qaadatay inay ku qanciso ay ku feelgarowday saas darteed maamul goboleedyada waa laga gardaran yahay dawladdana waxaan leeyahay khilaaf aragti kala duwan iyo inay maamulada ku baabi'inin way aad baa maastaa xooshow Ilyas adoo su'aashaasi adoo raaci doona midaas mid kalena waa ku dhiibaya sidaad xildhibaan fiqi su'aashan weydiinayo ahayd mooshinka laga keenay safiirka dalka imaaraadka u fadhiya dalka Soomaaliya oo sidoo sheegay faragelin xoog leh ku haya dalka xukuumadii ka hadli weyday tii hore ka hadli weyday kadibna annaga ay nadbiday inaan si kale wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumadda ay kula xisaabtamaan mooshinka keenan arrintaas iyada ah sidee u aragtaa sidaas lagu xakameyn karaa safiirkan faragelinta xoog leh ku haya siday sheegeen xildhibaanada mooshinka keenay horta waxaa waaye duraan safiirka tiis waan ka hadlayaa soomaalidu waxay ku mahmahdaa oohinta orgeyga ka weyn waxa weeye waxaan ka hadlayno waxay ku qotomaan kaliya aan ku haysano dawladda lama tashanin maamul goboleedyada mise waxyaabo kale oo ka horreeya jiro oo dawladda loo hayo waa inaan kala qaadnaa baasha haddii dawladdaani shacabkeeda uu hamuun qabay
ay shacabka dowladda ay la dhacsan yihiin haddii dowladii Soomaaliya dowladihii hore dowladan ay wax badan kaga duwan tahay dowladihii hore runtii oo aan aragnay yani ay tiri dowladaha dariska ah waxaan kula dhaqmayaa qaab diblomaasiyadeed arrimihii igaarka banaanka ka mara maadaama ay tiri haddii dowladani shacabkeedu gacmaha iska haysan la arkay oo laga xunya oo la rabo in shacabka dowladda in la kala qaado oo aan ognahay dadka maanta maamul goboleedyada madaxda ka asaliyan yani qaabka ku yimaadeen oo xitaa qaarkood qaab sharci aan ku imaan xitaa aan ognahay oo waliba dowladii madaxweyne xasan sheekh runtii wax badan uu u dulqaatay wax badan uu marsiiyay runtii waxyaabo aan sharci ahayn runtii uu sharci ka dhigay runtii maanta in dowladii sharciga ahayd la doortay maanta inay garab qabtaan ahayd mooyee iyadoo 6 bilood jirta inay ku bilaabaan ma haddii baarlamaankii aan ka nasanay mooshinadooda aan ka nasanay in maanta mooshinadii loo rogaay maamul goboleedyada waayaan daro weyn horta dhanka safiirka markaan kaaga hadlo safiirka shaqo uu leeyahay shaqadiisa inuu ku ekaado waa safiirka waxa inoo muuqato faragelin weyn inuu yani ka wado dalkeeni waxa inoo muuqata markii dowladda dhexe ay go'aankan qaadatay in uu ku yani nuu tixgelin waayay go'aanka dowladda ay qaadatay inuu inoo dawamaray guryaheena waxaan u jeedaa guryaheena dowladda dhexe ayaa meesha maamusho wadanka dowladda dhexe maamusho in yani dowladda dhexe ilmihii iyada hoos imaanayay in loo dawamarahay waa khiyaano mid ugu weynad waa oo qaranka laga galo waa so waxaan aaminsanahay wasaaradda arrimaha dibadda degdeg inay go'aan ugu cad ay ugu qaadato safiirada ku sugan dalka shaqadoodina loo kala cadeeyo safiirka imaaraatiga maadaama uu hadda uu yani uu xogaa mugdi iyo kalsooni darre iyo maamul goboleedyada dowladda dhex u geliyay waajibaadka dastuuriyan oo yani isaga oo la marsiin karo in la marsiiyahay haddii wasaaradda arrimaha dibadda ay arinta ay ka hadli weyso waxaan qabaa baarlamaanka dhexe inuu su'aalo ka keeno oo wasaaradda arrimaha dibadda kula xisaabtamo sababta faragelinta danjirayaasha wadanka joogahay ay ku hayaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada aysan wasaaradda arrimaha dibadda ay uga hadli laadahay taasi waxaan qabaa mid degdegsiima ah say ugu waxaan qabaa durano aan ka adoor haliya say ugu waana qaataan danjirayaasha kale ee wadanka muqdisho ku sugan ay u arkaan tallaabooyinka laga qaaday safiirka imaaraatiga aad baa maasta cabdinaas soo labadan su'aal inaan dib ku weydiin rabaa laba bilood iyo 10 cisho waqtiga markii Puntland bilowday 18 Agosto toddobaadkii dhaweydna maamuladii kale laba ku raacday inkastoo Hirshabeelle iyo Jubbaland oo nabaddoonnimo xaggeeda aaday ay wali banaanka yihiin waxaa lagu xamanayaa dowladda federaalka madaxda ugu sarreysa in ay ku guuldareystay inay ku qanciyaan go'aankii dhexdhexaadnimada ay qaateen dowlad goboleedyada 2 bilood iyo bar waqti yar maaha kadibna go'aanka dowlad goboleedyada ay qaateen dhanka kale dowlad goboleedyada laftirkooda waxaa lagu eedeynayaa interest personal oo gaara inta badan 90% inay arintan u geysay marka baado inta isu bardhigaya qanac la'aanta dowladda ay qancin weyday ka dowlad goboleedyadii iyo interestkan maxaa kaaga soo baxay horta intaan ka jawaabin waxaan rabaa afayeenka galmudug erey iyo ka dhawaajiyay oo ah dowladda Soomaaliya oo runtii aan u arkay kulay maybe waxa laga yaabaa inaan qaldanahay dowlad waxtar aan lahayn oo dowladihii hore aniga kulay qof walba ra'yiyo qaba aniga waxaan aaminsanahay dowladda waxa lagu xisaabaa intay joogtay maxay qabatay haddii wixii ay hadda ay qabatay ay u dhigmaan ama ay ka sii yar yihiin kuwii dowladda hore qabatay macnaheedu waxay tahay dowladda wax ma qabanin tan kale markaad leedahay qayra iyo farmaajo askar intay u direen ma tegin jowhar iyo cadaado iyo baydhabo ma tegin oo ma dhihin hebel ka tuuraan hebel ka tuura ma dhihin dimuqraadiga waa wax qaraar aan laqi karin dareenka shacabka dadka dareenka shacabka iyo xildhibaanada ayaa ka qaaday marka dad ay u direen taas marka xataa kulligooda saddexda gaas iyo shariifka iyo haddii lagu isku dhufto waxa ka qaaday xildhibaanada meesha ay ka soo jeedo ayaa ka qaaday dowladda Soomaaliyeed ee federaalka ah wada tashi wala tashanaysa wadankii federaal ay ku dhisan yahay laakiin afartan arimood oo dastuurka 54 ku meel gaar ku qoran yahay uma baahnay kala tashato haddii saas ay noqoto waxay noqonaysaa Arizona iyo California oo ku jira federaalka wadanka Mareykanka in Kim Jong Un oo nuclear inuu ku garaaco raba adduunka ay u tagaan oo ay yiraahdaan war haye anaga waxaan ka soo jeedin gobol hebel dadkan simply waxay meesha u tageen dan ma rabo dad odayaal oo waaweyn oo aan aqaano oo si fiican u aqaanaan xishmeeyo in TV live oo intaas milyan fiirsanaysa aan ku fadeexeeyo laakiin maanta ilama aha ninka cadaada ka tagay ninka garowga ka tagay ninka baydhabo ka tagay inuu u tagay danta Soomaaliya ku nool raas cashay ilaa iyo raas Kamboni ayaan u socdaa arinta ma xumo tan kale annaga danteena waxay ku jirtaa dhexdhexaad inaan meesha aan ka noqono ayay ku jirtaa danteena waxaa tiri dad badan oo Soomaaliya ku nool qadar dad badan oo Soomaaliya ka shaqeysa qadar
waxaa hadda la sheegayaa in Qatar Airways ay imaanayso waddankan imaanayso. Sacuudiga waa waddan historically taariikh ahaan naga dhexeeya, laakiin anaga danta iyo dowladda waxay ku jirtaa in aan maaragtay mar walba dhexdhexaad aan ka ahaano. Tan safiirka xogaha horta waa ila adkaatay markaan maqlay motion ayaa safiir laga keenay adduunka sharciga ku shaqeeya. waxaa jira waxa la yidhahda Vienna Convention caasimadda Austria lagu sameeyey muddo hadda 50 sano 60 sano ay ku dhowdahay. safiir waddan u jooga xildhibaanada motionka ma keeni karaan. safiirkan haddii wixii loogu talagalay ee waddanka uu u yimaaday u shaqayn waayo waxaa jirta wax laatinka lagu yidhahdo persona non grata. wasaaradda arrimaha dibadda guddi loo xil saaray oo uu madax ka yahay ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ayaa waxay samayn karaan ninkan in la yiraahdo sidii lagu sameeyay dadkii ruushka ahaa ee diblomaasiyiinta guriyihii lagala baxay oo la yidhi waddankiina waxaa idin siinay hal bil kaga baxa looga saaro way fududahay. ninkaas awoodda waxaa siisay dadka oo maaragtay Soomaalinimada ay ku yartahay ayaan dhihi karaa oo halkan iyo halkan ka hadla ayaa siisay. ninkan xataa afgooyo ma tegi kara amarlaan iyo ka helin wasaaradda arrimaha dibadda adduunka protocol waxaas lagu shaqeeyaa. laakiin simple in la yiraahdo xeef oo I hope xeef iyo gas iyo shariifka in xilka laga qaado I hope taasan ku rajaweynaa in la yiraahdo in la yiraahdo farmaajo iyo askartooda ciidamadooda koofiya casay u datay iyo xabad maya dareenka dadka oo ka tarjumay one ma jirin laakiin qof walba saa sheegtay oo faafin ku imaaday saasa loo qaaday kulligood in la wada qaaday ku fiican aad baa maasta abdinaas waayahay qadka telefoonka dadweynaha furi doona hadii la yiraahdo 1 iyo 2 iyo 3 intaan ka gaaray oo ku soo noqon doona ka hadli doonta hadii la yiraahdo waa ka hadli doonta dadweynahan siin doona hadii la yiraahdo bogga Facebook marka hore fiirinaya qaarad warsame oo jooga dalka Uganda wuxuu leeyahay Soomaaliya hal dal waa hal dal oo la mid ah wadamada adduunka go'aankan waxa iska leh dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya dowlad goboleedyada waxaan ka codsanaynaa inay mirta iyo sharciga ay tixgeliyaan sidoo kale Maxamuud Warsame oo jooga Gibiley wuxuu leeyahay assalaamu calaykum duraan maamul goboleedyada waa dhul ka mid ah Soomaaliya waxayna leeyihiin buu yiri awood la yaqaan oo dastuuri ah buu leeyahay dalka uu u qeexay waxaana qalad ah buu yiri hab dhaqanka maanta ee maamul goboleedyada Soomaaliya ay ku dhaqmayaan intaas ayaan isna uga soo koobahaya waayahay aan ku sii socdo wuxuu yiri waa bishaaro oo joogta Burco aad baan ku salaamayaa bay ka qaadna walaal haddaan barnaamijkan hoos u galabay tiri aniga sida ila tahay bay leedahay ma muuqato waxay leedahay ma muuqato waxa haddaan barnaamijka hore u galabay ku leedahay waxa muuqatay ku leedahay horta madaxda maamul goboleedyada iskuma qabsan in cidi ka sareyso iyo in kale dabcan ayaga inay u sareeyaan bay ismoodaan bay tiri marka qabqab dhaafada meesha ka dhacay dabcan sida iyadu ay hadalka u dhigayso bishaaro waayahay Maryam Daahir sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya 10 u dhigtay tiri maamul goboleedyada Soomaaliya dadweynaha waxaad moodaa dhanka dowladda federaalka inay aad loo safriyay bogga Facebook dadweynaha fara badan baan ka soo dhigtay dib baan ugu noqon doonaa hadii la yiraahdo qadka telefoonka fiiri doona halo may maqashaa hello السلام عليكم. سلام ولا سو كم عاجي ماشي كسر ليسو. وأنا مثلاً عبد الناصر وفيانك. هذا هرم وقال هذا الرالي فضلاً وقت بعد صعدة. ما جاء كبله هرم وقال هذا الرالي. هلا. وين. waxaan idin ka codsanayaa markaad qadka soo gashaan fadlan waqti badan waqtiga yar magacaaga sheeg haddaad barnaamijka la socoteen hore u galado raaliya salaamaha dib baa iska salaami doonaa haddii la yiraahdo xataa waaye qofka ugu horeeyaan fiirnaa halo bay maqashaa salaamu calaykum calaykum asalaam warahmatullahi wabarakaatu soo dhow magacaaga waa hooyo Soomaaliyeed walaalo hooyo Soomaaliyeed haay walaalo hooyo Soomaaliyeed barnaamijka dareenka shacabka ma isticmaalo adoo raaliya dareenka shacabku dareenkiisu soo gudbiya marka magacaaga noo sheeg hooyo Soomaaliyeed magacayga Faadimo Ismaan baa la yiraahdaa Faadimo soo dhow hore u gal barnaamijka maxaa ku daraysaa barnaamijka waxaan ku darnaa horta marka u horeysa raggiina Soomaaliyada meeshaan fadhiya turaan telefoonka ugu gooyin dadka telefoonada waad ku jabaa adiga oo runtii aan ku leeyahay dadka tartansiyaa tahay fadlan wax yaraan wadaa inaad ka faa'iidaysto isug كوجمة horta nimanka meesha fadhiya sababada ninaro dawladda difaaca horta dawladda Soomaaliyeed waa runtood kuwaas waa la jira dawladda waxaa cadaha loo dhigo dawlad goboleedyada u tartamaya carab waxba lagama gelin
waxna ma wadaagno sacuudi araabiya wadayaha madaxa madaxweynaha naga kala xakiyeen oo kala keliyeen haddaad caqli leedihiin dadka u doodaya carab digaana waxba ma wadaagno waa carab baa loo xoraarin bari oogaa soo doona waxaa laga yaabaa hadda carabu doodayaan dib ugu noqda caruurihiina hooyooyinkiina dib ugu noqda guryahana dib ugu noqda waxa carabi maalmaanta ajaabsanaya sacuudi araabiya wax ka socda oo ay ku sameeyay hooyooyinka soomaaliyeed carruurta soomaaliyeed iyo odayaashii soomaaliyeed dibasoodayo ninka u doodaya isbisha gobolada waa zero nin walbana dantiisa u tagaa carab uma taga dadweyne dadka farmaajiya qaaroo doorteenay ra'yigaan shacabka soomaaliyeedna waxaa leeyahay isbisha hooyooyinka soomaaliyeed raggu baral bay idiin wadaane iska celiyaan leeyahay فاطمة بابا سكاي فاطمة بابا استوى كمان لنا برنامج درك شعب كي سياسي قصاد وقيب قاعدة تو كوبن قفك كوحيقة أيام فيرنا يا برنامج درك شعب كي سياسي عاون وحنا قاعد لنا اسمان دافكا كده حلو سنقار كم الدول الجوال الصومالية يولي الدول الفدرالية الصومالية كوس هابشن كوانكي وضمدا قليشك دقالكي كده طبعا اسفهان لانت وضمدا قليشك والصوابي قفك أيام فيرنا هلا بين مغشان سدو معي ما وحنا محمد برقاسم محمد انت طبعا كاقات هروك هذا سو كذا waxaan rabaa inaan salaamo arkaygalkiisa iyo baraanka shacabka iyo siyaasiga buu hogaaminaya duraan soo dhow waxaan rabaa hal abti ah abtiga waxa weeye SYL iyo qaranka Soomaaliyeed wuxuu ka bilowday difaaca ummadda Soomaaliyeed iyo danaanteeda qof kasta oo ummadda Soomaaliyeed difaacayana wuxuu ka mid yahay SYL ninka walaala Soola waxaan codsanaya ummadda Soomaaliyeed inay difaacdo sharaftiisa iyo karaamadiisana ku difaacda iyo difaaca ummadda Soomaaliyeed uu ku jira dadka wasaya Soomaaliya ee aad u liika ee kaatuuska weligoodba waa jiri jireen sida Shariif Xasan iyo waxa la midka ah yaa kuwan hadda jiro نعم تسوق بدل راليه وحوي dadka halgamayaan difaacna Soomaaliyada maslaxadoodu ay tahay ma sitay aad baa maastaan kaamalna barnaamijkan qofka ku xiga ayaa fiirinaya madashaan soo noqon doona hadii la yiraahdo qofka ku xiga hal ma maqashaan halo alaykum salaam wa barakatuh magacaaga adoo hore u gaado raalيه محمد وحنا نتعرض أرنتا سفير إمارات الجيش الصومالي محمد وحنا نتعرض سفير الجيش الصومالي إمارات مشاهد نكاس وحقوقنا وزارة الخارجية إن كسر صار قرار إن كذا بحه وردنك وطني أطر في ما جلد الصومالي ومركز تفارب أما إنسانات الدنيا ممكن محمد يورو وحكوري شيخ عبد القادر وحكوري ممكن على خرم بريتون صار مركا أيضا معنا لا أيضا يعني خلطات أرض ومعنا وبسيطة مركا نكا إن ممكن نشيل لبعض بانين انت خبرنا إن يوسف صار تنفر عور نضبح نعم هذا ما ستاي مركا ما نعرف كان قلقي بقاتي ماذا كسر نقدنا هذا اللي يراهدو حوشو طبعا سؤاشي سفيرك كساب سنين يتذارك قدام بيدر هالي سؤاشي إذا سفيرك هذا أقول أنا إن كهذا لكن وحنا ربع إن صومالي وشيء واقع السياسة ضبطها أن كجرنا يفيكي صومالي لماذا والله وضع الله بكليه ضبط صومالي لماذا سنجعلهم وضع جعلنا لكن واقع كنا قلنا هاي سوى مرة بينا هوستك حريقنا واي سفيرك إماراتك كلية معها ضبط فرحة كل جرى سياسة الصومالي waxaa dhex jooga fil Soomaaliya waligiisna jooga agaarkeeda gabre waxaa jooga oo madaxweyne xaqiiqi ah ka wadanka Michael Keating oo soo dirsadeen adduunka caalamka dhan la wada ogyahay
waxaa jooga intaasoo dowladood oo dana kale oo danahooda qaarkood ay isdiidayaan. markaan soomaalinimo sheegano dhabta markaan imaano kursiga waxaa lagu dhaqmayaa sida saxda ah. Farmaajo muwaadin ahaa Soomaaliyeed si Soomaalinimo lagu doortay, shalana qalbi dhagax u dhiibay, waa arkayseen. waa waaqica dhabta ah waay, ma aha asaga Soomaalinimada inay ka yaraatay, laakiin daqdiga culayska saaran iyo siyaasadda rasmiga ah waxay keenaysaa mararka qaar inaa wax qaraar la qado. marka waxaa la rabaa Soomaalida inayna waxba gacanteeda ku jirin. Filla Soomaaliya haddii ayna waalideynaynin Ugandheeska hal maalin lama joogi karo, iyayaan anaga is cuneen. dad la ilaalinaayo, la biilaayo, cunto la siinaayo, kulli wax ka wada raadinayo ajnabigaana siyaasad. kulli waxaana laga siyaa international community-ga habarta hadashaba waxaa la international community-ga waxaa laga rabaa lacag iyo dhaqaala laga rabaa. adduunka hore waxay u dhaheen Sudan Turabi maya Saadiq Almahdi aabiis man laa yamlik quutuhu laa yamlik qaraaruhu. qofkii aan asaga wax goosan karin oo raashinkiisa iyo cuntadiisa, askartiisa, ciidankiisa wixiisa aan ku filnayn, yani qaraarkiisana kuma filna, ma laha, dad kale iska leh. therefore qaraarada aan gaarayna mararka qaar waxay bias u yihiin ama u xaglinayaan dhinacyo kaleeto oo nagu xeeran siyaasadeeda. marka maamul goboleedyada dan kale qaliijka iyo saas ma aha. qaliijka waxay ku fadhiyaan arrinta Soomaaliya oo dhan ay ku fadhiyaan. bal waxaa mataqaanaa dowladda Soomaaliya laftarkeeda ay dhexda uga jiraan. hadda waxaa la wacay Sacuudiga laga wacay Farmaajo, waxaa laga yaabaa beri soo bedel inuu ku imaado. beri waxaa laga yaabaa inuu yiraahdo kheyran bedelaya si uu ugu dhunto mataqaanaa waxa dambiga galay waxa sameeyo loogu saaray ra'iisul wasaaraha. laakiin wax la wada leeyahay tahay. marka real politics ka jiro iyo fakinka oo anaga dadka aan u sheegayna ama anaga lafteena aan u sheegayna SYL iyo Soomaali guud iyo Soomaali saas amaanta ma joogto. waan rabnaa inay timaado rate. aadaan u jeclahay personal in Soomaaliya hal ay noqoto, Soomaaliya xoog iyo power ay yeelato. laakiin seen ku gaari karnaa arrimahaas waay. waxaan u gaari karnaa oo in bagaati aan isku waafaqnay inaan noqono federaal. maxaa keenay? waxaa keenay markii reer walbaba oo isdhaho waxaa role model ah xukunkii 21 sano siyaad barre, markii ciddi xukunka qabata waa ayadaa reer diini ah, wax walbana ayadaa qaadanayso. waxaa la yidhi xukunka ha la qaybsado. marka Soomaaliya hadda qof kastoo laga sheekeeyo siyaasadda Soomaaliya laga sheekeeyo ma yaqaan, wuxuu yaqaanaa xukunka ninka qabtay reerkiis inay leeyihiin. sax maanta waxaa laga yaabaa reerka Farmaajo iyo kheyr ay ka dhasheen inay dowladda aad u rabaan, beri haddii dad kale imaadaan kuwa kale aad u rabaayo. marka dad waaqicaas ku noolaan nahay. waxaan rabnaa inaan runta isu sheegno oo aan siyaasadda dhabtaa ka hadalno. safiirkan keliya ma aha waxa mataqaanaa Soomaaliya waa la buuxaa lugtu ku qasay, waa la buuxaa sida loo noolaa karo oo arrimahaas looga bixi karana waxa waaye inaan si oo mataqaanaa uga wadashano. waxaan rabaa anoo koobayo federaalkii aan ku heshiinay oo power sharing ah gobolada. dardaarankaga ugu dambeeyay haddaad gobolkii aad ka timid waqtigiina kaa yaraanayo see yeelaan. waxaan rabaa inaan dhameeyo maamulkaaga isku dhex yaacsan oo xoogaa aad moodeen. jazakallahu khayr. maamulkayga soo kor fadlan maamulkayga isku dhex yaacsan waa ka bixi doonaa insha Allah. dhaxyaa waa ka bixi doonaa, waa xallin doonaa. waxaan kula talinayaa in is xalliyaan insha Allah taala, gaalaan ka sheegi doonaa. laakiin waxaan ku heshiinay bagaati inaan noqono federaal. dastuurka aan haysano waa dastuur federaal oo qaybsan. waxaan rabnaa marka dowladda inay noqoto dowlad kaaba qabiil ah, qabiile xukumaysa, mid walba inay madaxa u salaaxdo, mid walba danihiisa ay fiiriso, waxay isku soo dhaweyso ay dadkaanu gaarsiiso in heerkan laga baxo federaalka oo loo noqdo dowladii kaleeto. laakiin haddii la yiraahdo maamulkii xoogaha aan igu siyaasad ahayn ama si diidanba waxaan ku bixinayaa qarash inuu baaba'o, waxay tegaysaa inaan gadaal u noqono iyo meeshii laga soo bilaabay. wax anfacayana ma aha. waxaan leeyahay ka dayso maamulada mataqaanaa aad baa maastay xasho labadiina dadaarankiina wada ka rabay waxaad ku daran lahayd barnaamijka dadaaranka intaan u gudbaan alla kaftamay saaxiibkay horta anigu Farmaajo iskuma dhowin marka laga soo tago Soomaalinimo baa isaga soo dhacna khayran saas oo kale. dowladda hadda dhisanna wasiir kuma lihi, dowladii ugu dambeeyay wasiiro iyo wasiir ku-xigeen aan kula runtii saas ay tahay. maanta danahaas qaaska oo beesha inta meel iska dhigay amaanta waxa ummadda Soomaaliya aan u fadhiyaa dowladda dhisantay, bal aan taageerno danta qaas inaan ka gudub danta guud ahaan aan ku taageerno. horta xooshu taasaan ka leeyahay. waxaa laga yaabaa inuu asaga wax badan nacfi badan inuu ku haysta laga yaabaa dowladda hadda uu asaga uu dhaliilaayo, horta dhaliilaha badan u jeedinayo. tan kale runtii waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya in shaqadoodii ay gutaan. waa in tallaabo sharci laga qaadaa dowladahani faragelinta ku haya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka dhex shaqaysanaya. waxaan kaloo baaq ugu jeedinaya halkan baaq ugu jeedinaya oo gabagaba ah runtii baarlamaanada dowlad goboleedyada gaar ahaan maamulka amba deegaanka anigu aan kasoo jeedo koonfur galbeed ah. waxaan leeyahay waxaad ogtihiin in
dowladdii dhexe oo Soomaaliya la aqoonsanaa in lagu caasiyay waxaad u jeedaan in dastuurka lagu xadgudbay waxaad u jeedaan in rabitaanka shacabka iyo rabitaankiina iyo xildhibaanadii aan lagu tala celinaynin oo go'aano khaas ah oo personal in la gaaray runtii oo interest yani gaar ah aan oran karo ama shakhsiyaad gaar ah iyagu ay wataan waxaan idinka sugaynaa waxyaabaha yani ficil ridiga ah oo dareenkiina ah inaad cabirtaan siday u cabirayaan saaxiibkii xowshow oo cadaado si dareenka loogu cabir maanta iyagoo idinkuna inaad dareenkiina si dhaqsi ah ku cabirtaan go'aano ka qaadataan waxaad la socotiin halmaamina in madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan qaabka meesha uu ku joogaa aysan ahayn yani qaab dastuuriyan ah runtii uu ku joogo qaab aan xildhibaano dooranin qaab shacab meel isugu keen ay doorteen runtii xildhibaanadii dowladda maamul goboleedkana markii la dhisay kadib uusan kalsooni weydiisan runtii waxaan la soconaa maanta in haddana dowladda dhex la isku sii taagay runtii iyadoo la eegay danta guud waa in aad ka dareen bixisiin arrinta taagan oo tallaabo degdeg ah ka qaadiin madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan wabillahi cabdinaasir kaalintaadii la joogaa wixii dhiman waxaad ku darayso dardaarankaagii ani dardaarankayga horta dardaaran wax la yiraahdo ma jiraan horta ingiriisku wuxuu is rich coming from you afhayeenkii galmudug ayaa maaragtay maanta qabaa'ilo Soomaaliya ama qabiil ka hadlay oo waxyaalo ka hadlay marka runtii xogaa waa ila adkaatay aniga sababtoo ah waa sheegtay 4.5 lagu qabsaday 4.5 lagu qabsaday waxaas aniga anoo maaragtay oo Soomaali ah maxaan soo yareenayo qabiil isaga dhigaya aniga qabiilna meel kuma tagi lahayn okay marka waxaan rabaa arrin yaab la ka dhacday wadanka galmudug iyo South West iyo Puntland oo hadda Soomaalinimada ay ku badatay oo danta Soomaaliya u doodayaan waxa dhacday arrin yaab leh badda Malta ee u dhaxaysa Talyaaniga waxa ku geeriyooday Soomaaliya oo fara badan maalintii meedkooda la keenay wadanka Talyaaniga madaxweynaha Malta iyo kan Talyaaniga ay saraan u bixinayeen meedkii Soomaalida meesha iyo Islaamaantaas waxa lagu dabaaldegay maalintii calanka Ethiopia Puntland iyo South West meesha lagu dabaaldegay iyo cadaad marka markay dhahayaan Soomaalinimada iyo adoo haddana waxa tiri xushu saaxiib qarash waxa tiri oo qarash lagu bixinayo qarash teekana dawladdu waa broke wayada marka ma farmaajo iyo waxa sameeyay baalkii iyo qayre inta jeebkooda lacag ka soo bixiyeen ma yiraahdeen lagu rido xeef ama lagu rido ninkan la yiraahdo hadda oo maartay Shariifka oo hadda lagu ridin waxa dadka riday baarlamaanka lagu riday marka waxaan rabaa hadda waxay ku socotaa asaadoosta ku socotaa Shariifka oo aan ku imaanin qaabka doorashada oo hadda motion laga keenayo sababtoo waxa la bartay awal dawladii hore in lagu rido motion ha lagu qaado laakiin motionkii shacabkii adi ma kula tahay cadaado konton iyo laba xildhibaan hal absent ay hal kala maqan inay tuuri lahaayeen haddii oo maaragtay dareenka shacabku uusan ahaan lahayn marka waxaan aan ku soo afjarayaa horta dhammaantiin waa mahadsantihiin ra'yidiina kala duwan waxyaalo badan ayaan ka hadalnay horta ilaahay tawfiiqdana waafaji anagu dhan fahmaysaa haddii maanta ninka ka socday cadaado iyo baydhabo iyo garowe markay ka degeen madaarka Dubai ama Abu Dhabi markay ka degeen ayu from galmudug passport galmudug waa wadeen calanka Soomaaliya asan Soomaaliya ku socdeen waxay u socdeen hunguri ay u socdeen uma soconin arinta Soomaaliya ka socota wadanka waan la soconaa South West Puntland iyo waxa ka jira abaarihii ugu darnaa kama bixin wadanka weli oon ayaa ka jira duufaan ayaa ka jirta marka haddii aan iraahdo siday boqorada Ingiriiska tiri ilmahan Afrikaanta maxay gaaj u haysaa hooyo may cake samaysanay tiri why can't they just make cake haddii aniga aan cake ama doorshaan cunaan heli lahaa gaaj ma qaban lahayn marka muhiimadda waxaan ku soo afjarayaa waxay tahay ilaahay waxaan ka baryayaa horta wixii ilaahay laga baryo lama waayo ilaahay Soomaaliya nabad u keeno laakiin waxaan ku farxi lahaa bari markaan soo tooso Shariif Xasan oo hadda ololo aan baydhabo aan ka maqlay baydhabo ololo aan ka maqlay ninka horta no markaa rabtid in la rido Shariif Xasan iyo xaaf iyo maamul goboleedyada waxaa wadaa dareen ee Soomaalinimo oo hal maya hatta qof kale oo at least Soomaalinimadu ay ku weynta aniga waxaan aaminsanahay maya gobolka joogo laakiin at least ani maanta waxaa iska mid nahay Soomaalinimada laakiin adiga waxaaba xogaa loo baa iska dhigtay فهميسا وكل وحاول أنا بسنتي لبدي بعد ما سنتي برنامج برنامج شعب السياسي ولا شك أنا تاريخ أو سجال كين ترى سوق بجبان مع علي اسمان عبدي راجع حوشو
afhayeenka galmudug ee UK garabka midig buu fadhiyaa sidoo kale mahad celiyo Ilyas Saciid Cali oo aan dhalinyaro arrimaha siyaasadda aad u falanqeeya dhawaana dalkii ka soo noqday oo waliba wax badan ka og dalkii sidoo kale mahad celiyo Cabdinaasir Ismaaciil Cabdinaasir Soola oo ah saxaafi Soomaaliyeed aqoon-yahan ah asaga qudhiiso dhawaan dalkii ka soo noqday wax badan og labadiina xogaa waxaad soo dhadhamiseen ciidii xogaa naga wadanisantiin marka ciid maamul goboleed أنا ما أدري دمان دودينا شرفت له قرطة بدنا دعوانا أنت قد كتلفك سوق قاتل أنت سوقلي واي ما نكلو سوقلي دونا أنت بوجا فيسبوك كسر ديبتي فرق بدن أو عن دوري يلا بك سوق قاتل أنا ما أدري فرسمي يقان كقارجة وريه محمد قدر أو حقتي يقول رسالة نصب بري أنا ما أدري حلبان هذا في الماء كم حلبان أحمد معلم فقي وبرنامج قد تلفق وقيب قاتل مقالة المقدسة دوك أنا ما أدري دكتور فيصل روبلي وأسناد لك مريكا برنامج وقيب قاتل أنا قاعد عبد الله شروع أنا قاعد أشتري كنت بنتان برنامج كمل كل مدونه ما هذا كتجاي سداسيو نبت قل